بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال idilkiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aynu idin soo gudbino alaaba barnaamijkan waxaynu ku eegnaa ama aynu ku soo qaadanaa siyaasadaha ka jira dalka Soomaaliya qodobada maanta aynu idin haynana waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaare Khayre iyo Fahad Yaasiin oo shuruudo adag kala kulmay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland wararkii ugu dambeeyay kulamo xasaasi ah oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaynu idin soo gudbin doonaa baarlamaanka Kenya oo laalay qorshe xukuumadda Kenyatta u gudbisay si cadaadiska loogu badiyo Soomaaliya oo xiisad siyaasadeed kala dhaxayso madaxweynaha Somaliland Muuse Biixina waxa uu ku dhawaaqay in bishan gudaheeda uu furmayo wada hadalka dawladda federaalka iyo Somaliland haddaba xagee ayuu ka dhacayaa yaase garwadeenka ah barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad iyo aad ku daawan doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo jabkii ugu weynaa ayuu ku riday ciidamada AMISOM ee howlgalku jooga Soomaaliya u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu goor soo gudbino mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa Khamiis 14 bisha 3 ee Maaj sanada 2019 daawadayaal waad ku mahadsantihiin inaad nagala qayb qaadataan barnaamijka oo fariin gaaban qaybta commentiga aad nagu reebtaan haddii aynu ku bilowno barnaamijka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin ayaa shuruudo adag kala kulmay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland kadib kulamo xasaasi ah oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland sida aynu ku helnay wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Kismaayo kulamo adag ayaa xalay waxay dhaxmareen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre Fahad Yaasiin taliye ku xigeenka hay'adda NISA iyo Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland kulamada ugu horeeyay waxa isku arkay Fahad Yaasiin oo taliye ku xigeenka hay'adda NISA iyo madaxweynaha Jubbaland waxaana ay qaateen saacado badan iyadoo wada hadal dheer kadib uu dib uga soo biiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre qodobo dhowr oo kulamadaasi lagu falaqeeyay ayaa la shaaciyay badankood in la isku raacay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa la yimid shuruudo dhowr oo hordhigay ra'iisul wasaaraha iyo taliye ku xigeenka hay'adda NISA waxaana kamid ahaa shuruudahaasi in gebi ahaanba dawladda Soomaaliya ay faragelinta ka dayso doorashada Jubbaland iyo arrimaha maamulkaasi waxa kale oo Axmed Madoobe uu ku adkaystay inuusan marna ka tanaasuleyn damaciisa ku aadan in mar kale oo sii difaacdo kursigiisa si uu u sii noqdo madaxweynaha maamulka Jubbaland hogaamiyaha Jubbaland ayaa sidoo kale miiska soo saaray dalab ah in isku shaaneyn lagu sameeyo golaha wasiirada dawladda federaalka si uu u soo xusho xubnaha Jubbaland ku matalaya dawladda federaalka ee wasiirada ah Axmed Madoobe waxyaabaha kale oo shuruudaha ka dhigtay waxa kamid ahaa dawladda federaalku faragelinta inay ka dayso maamulka Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Galmudug oo uu arko inuu doon isla saaray yihiin Axmed Madoobe ayaa ka dalbaday mas'uuliyiintan dawladda Soomaaliya inay faragelinta ka dayso maamulada ka aragti duwan si isku soo dhawaasho loo helo shuruudaha uu soo bandhigay madaxweynaha Jubbaland oo intooda badan ay aqbaleen mas'uuliyiinta la kulantay waxa sidoo kale dhinacyadaan ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay si la isugu diyaariyo doorashada soo socota 2021 ee dawladda federaalka ajandaha kulanka sidoo kale waxa qayb ka ahaa si aragti midaysan looga qaato kulanka dhamaadka bishan loo balansiyo inuu ka dhaco magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland halkaas oo madaxda Soomaalidu isugu tagi doonaan isagoo madaxweynaha Jubbaland ka dhawaajiyay maamul goboleedyada qaarkood xiriir dhow inay la leeyihiin dawladda federaalka sidaas darteedna muhiim ay tahay aragti midaysan in lagu tago shirkaasi inkastoo si rasmi warbaahinta loogu shaacin heshiisyo rasmi ah oo dhinacyadaan ay gaareen haddana wararkii ugu dambeeyay ee Kismaayo laga helay isla markaana aynu ku helnay ila xoggaal waxay tilmaamayaan in inta badan la isku raacay qodobadii laga wada hadlay oo dhinacyadu is-ogol ka noqdeen madaxda haatan talada haysa dawladda federaalka ayaa doonaysa inay dib u soo laabtaan iyagoo samaysanaya xisbi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin
inkastoo wararka qaar ay sheegayaan ra'iisul wasaare Khayre inuu doonayo xisbi ka madax bannaan kan madaxda dowladda. kulankii adkaa ee xalay ka dhacay Kismaayo waxaa ka horreeyay kuwa gaargaar oo mas'uuliyiintu siyaabo kala duwan ay isugu arkeen, kuwaas oo inta badan isku soo dhawaasho laga gaaray, waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan warbaahinta lagu shaaciyo heshiisyada dhinacyadan u gaareen. وهاجاك داود يا الورقات يا نقل سعتان قيبيه وجرى برامج كاين وكجد جرنا برلمان كدولة كينيا أياد ديدي قرشي وجود بسي حكومة أهورو كيات كاس أو لحريري دربجة لقد سيو حدود كينيا إيه سوماليا وداغان برلمان كينيا أياد ديدي قرشها سي يدو حكومة كينيا ميسك سو سارتي دقالة جارية 3.5 مليون أو لعقت كينيا taas oo la qorsheeyay in dib loogu bilaabo dhismaha derbiga xuduudda labada dal. Baarlamaanka ayaa sheegay inaysan aqbalayn iyaga oo soo jeediyay in beddelka lacagta derbigaasi lagu dhisayo lagu daro miisaaniyadda lagula dagaalamayo kooxda shabaab maadaama khatar weyn ay ku yihiin amniga Kenya sida ay yiraahdeen xildhibaanadu. xukuumadda Kenya ayaa qorshaha dhismaha derbiga kala qaybiya xuduudda dalalka Soomaaliya iyo Kenya joojisay bishii March ee sanadkii 2018 waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay socday qorshe dib loogu bilaabayo dhismaha derbigaasi. gudoomiyaha gobolka Madheere ee Kenya ayaa sheegay in dhismaha derbigaasi la joojiyay kadib markii ay kulmeen isaga iyo gudoomiyaha gobolka Gado ee dowladda Soomaaliya. Kenya ayaa bilowday dhismaha derbiga kala qaybinaya iyada iyo Soomaaliya kaas oo dhererkiisu yahay 700 kiiloomitir sanadkii 2013 iyadoo marar badan uu joogsaday dhaqaale xumo. arintani ay Kenya ku dalbanayso in derbiga dib loo bilaabo waxay imaanaysaa iyadoo xiisad siyaasadeed oo adag ay u dhaxayso labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya. وهاجاك داود يال ولي ورقادي نقل سعتان قيبيه دحى برامج كريمها سياسة الصومالية وين كوجد جرنا مدحونها الصومالي الآن موسى بيح عبدي أيا كل واقعي إن سجال يتبنك بشان ماج أو دلك جانا كدع دونه وده هذا الكدولة فدرال كإيه الصومالي الآن موسى بيح أيا شيء إن مدحد الدولة الصومالية جديدين وده هذا الكاسي مجرى إلى أي هذا وحوره وكسو بحي دولة فدرالك Soomaaliya kaas oo ku saabsan wada hadalka la sheegayo bishaan inuu ka dhici doono dalka Ghana ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore shaacisay inay diyaar u tahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxa ay shaacisay inay diyaar u tahay in dib loo bilaabo wada hadaladii dowladda federaalka iyo Somaliland kaas oo hakad galay sanadii 2015 xilligaas oo ugu dambeysay wada hadallo toos oo labada dhinac dhexmara. Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa horay ugu shiray dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta, Djibouti iyo Ingiriiska. waxaana ay tahay arrin cusub in dowladda federaalka iyo Somaliland wada hadalkoodu ka dhaco dal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. wada hadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa garwadeen ka ah dowladda Turkiga iyadoo safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ninka lagu magacaabo Olgan Beger u soo magacaawday inuu noqdo ergeyga Turkiga u qaabilsan wada hadallada labada dhinac waa Soomaaliya iyo Somaliland. inkastoo ay jiraan dowlado doonaya arrintan inay lug ku yeeshaan oo ay ugu horeeyaan dowladaha Ethiopia iyo Djibouti, haddana Turkiga ayaa kaalin weyn waxay ku leedahay wada hadallo la isugu keeno dhinacyada Somaliland iyo dowladda federaalka. lama ogo in dowladda federaalku ay aqbali doonto wada hadalkan uu shaaciyay madaxweyne Muuse Biixi ee lagu wado 19 bishan inuu ka dhaco dalka Ghana. وهاجاك داود يال قيبيه دنبه برامج كايا إنه يسلسوا قارني مدحوينها ودن كامريكان دونالد ترامب يا شاعيي هذا النيجبكو هولغالك أميسوم جوغا سوماليا. هولغالك عيدمدا أميسوم سوماليا أيا waxa uu wajihi doona halis dhaqaale oo xoogan taas oo sababi karta in ciidamada Amisom gabi ahaanba isaga baxaan Soomaaliya kadib go'aan ka soo baxay maamulka madaxweyne Trump ee dalka Mareykanka. Trump oo ku dhawaaqay miisaaniyadda dowladdiisa ee sanadka 2020 ayaa waxa uu qiimo dhimis xoogan ku sameeyay lacagta Mareykanku ku caawiyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
qorshaha Trump ayaa ah in la dhimo 65% lacagta Mareykanku ku bixiyo ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya, taas oo markii hore gaaraysay $254 milyan. waxaana gebi ahaanba la doonayaa in laga dhigo $9 milyan oo kaliya, ayadoo arrintan culays xoogan ku noqon doonta ciidamada AMISOM. go'aanka Trump ayaa xaaladda ku sii xumay doona AMISOM oo markii horeba wajahaysay dhaqaale dhimis 20% oo ka timid midowga Yurub. dhawaan waxaa taagnaa muran xoogan u dhaxeeya dalalka ciidamada AMISOM ka joogan Soomaaliya iyo ururka midowga Afrika, kaas oo ku saabsan in la yareeyo ciidamada Burundi ee jooga Soomaaliya 1,000 askarina laga dhimo, ayadoo sidoo kale ciidamada Uganda lagu wargeliyay in la dhimi doono. waxaa soo madaxweynaha wadanka Uganda Museveni uu sheegay inaysan dhimi doonin ciidamadooda oo taas bedelkeeda dhammaan ay la bixi doonaan. ururka midowga Afrika oo inta badan ku tiirsan dhaqaalaha Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa qasab ku ah in ciidamada jooga Soomaaliya wax badan laga dhimo, maadaama aysan suurtagal ahayn inay sii qaataan lacagtii hore u heli jireen. ciidamada jooga Soomaaliya ee midowga Afrika ayaa markii hore mushaarkoodu waxa uu ku bilowday in halkii askariba uu helo $1,500 bil kasta, ayadoo hadda la gaarsiiyay $825 kadib markii 20% laga dhimay dhaqaalihii ay heli jireen. haddii sanadka xiga lacagtan 65% hoos ugu dhigo Mareykanku, waxay taasi ka dhigan tahay in ciidamada AMISOM shuruud la'aan Soomaaliya ay ka soo holooli doonaan. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad. intaanu mid lamada ku kulmayno, nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaalo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.